عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. waxaa laga soo wariyey abi hurayra allaha ka raali noqdee inuu nebiga yidhi naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee haddii loo istaago salaad ma jirto wax salaad ah ilaa iyo midda waajibka ma ahee. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. أنس بن مالك الله كرع لنقضي وحيري النبي نحريس إن بدقلي دوشي ساعتي أو يري محاسكة ددك إيجا حق عركة صلاة قده ذا markaasuu hadalkii ku sii adkeeyey nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee waa inay ka joogaan fiirinta xagga cirka salaada gudaheed, haddii kale waxaa laga qaadi doonaa araggooda, indhaha ayay beeli doonaan. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله. عبد الله بن عمر isagii aabihii allaha ka raali noqdee waxa uu yidhi waxaan arkay nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee oo salaada ku furanaya allahu akbar, wuxuuna gacmihiisa ku abaari jiray oo ku aadin jiray labadiisa garbood, oo marka uu rukuucayana wuxuu uu samayn jiray sidaasi oo kale. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عائشة الله كرالي النقضي waxaa laga soo wariyey inay tiri waxaan wax ka su'aalay rasuulka alle naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee milicsiga iyo ducka eegista salaada gudaheed. wuxuu yidhi waa hab ka mid ah xadidda uu shaydaan ka qaato qofka salaadiisa qayb ka mid ah. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. سهل بن سعد الله كرالي نقضي waxaa laga soo wariyey inuu yidhi waxaa dadka la amray inay saaraan gacanta midig dhudhunkooda bidixda korkeed markii ay dukanayaan. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. أبي قتادة waxaa laga soo wariyey in rasuulka alle naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yidhi waxaa dadka ugu xun kan wax ka xadaa salaadiisa. markaasay saxaabada ku dhaheen sidee ayuu salaadiisa isaga xadayaa qofkaasi? wuxuu yidhi naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ma dhammaystirayo qofkaasi rukuucdeeda iyo sujuuddeedaba. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. عبد الله بن عباس isagii aabihii allaha ka raali noqdee waxaa laga soo wariyey inuu rasuulka naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yidhi
waxaa la ii amray inaan ku sujuudo 7 lafood foolka uu ku jiro sanka intiisa hore. nebiguna naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu tilmaamay xagga sankiisa, labadiisa gacmood, labadiisa lugood iyo faraha labada cagood. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. عبد الله بن عباس isagii aabihii Allah ka raali noqday waxaa laga soo wariyay inuu rasuulka naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yidhi: waxaa la ii amray inaan ku sujuudo 7 lafood foolka uu ku jiro sanka intiisa hore. nebiguna naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu tilmaamay xagga sankiisa, labadiisa gacmood, labadiisa lugood iyo faraha labada cagood. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. anas allaha ka raali noqday wuxuu yidhi: waxaa salaad ina dujiyey rasuulka alle naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee maalin ka mid ah maalmaha. markii uu salaadda dhammeeyey wuxuu wejigiisa soo xejiyey dhankeenna, wuxuuna yidhi: dadow, waxaan ahay iimaankiinna, ha iga hormarina rukuucdiinna iyo sujuuddiinna aniga, iyo istaagidda iyo salaad ka bixiddaba. waxaan idinka arkaa hortayda iyo gadaashay. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. anas allaha ka raali noqday waxaa laga soo wariyey in rasuulka naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee uu yidhi: sujuudda ku nagaada, yuusan qofkiina dhudhumihiisa fidsan sida eeyaha ay u fidsadaan dhudhumahooda. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أبي هريرة الله ka raali noqday wuxuu yidhi: nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu yidhi: markii aad maqashaan iqaamada, u socda salaadda dhankeeda si miyir leh oo deggan, oo ha degdeginina, ee wixii aad salaadda ka gaartaan wax ka dukada, wixii idin dhaafana gadaal ka dhammaystira. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتله، فإنه شيطان. waxaa laga soo wariyey abi sacdin alqudri allaha ka raali noqday inuu nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee, haddii uu qofkiina dukanayo salaad, waa inuu hortiisa taallaa sudra ama teed, hana u dhowaado teedkaasi, yuusan u oggolaan inuu qof dhex maro teedkii u yiilay isaga dhexdood. haddii uu yimaado qof doonaya inuu dhex maro, ha la dagaalamo, maxaa yeelay qofkaasi waa shaydaan. عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. عبد الله بن مغفل الله ka raali noqday
wuxuu nebiga naxariistii nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ka soo wariyey inuu yidhi, qofkii igu soo gaara anigoo sujuudsan ama rukuucsan ama taagan salaadda dhexdeeda waa inuu qofkaasi la yimaadaa xaaladda aan markaasi ku suganahay. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. أبي هريرة الله كرر لنقضي وحو يري رسولك الله نحريس نبدقلي دوشي ساعاتي وحو يري هدي آت صلاة دو استاكتو تكبير سو وده الله أكبر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. عبد الله بن عمر إساقي آبيه الله كرر لنقضي وحو يري waxaan arkay nabiga naxariistii nabadgelyo dushiisa ha ahaatee oo salaada ku xiranaya Allahu akbar wuxuuna gacmihiisa ku abaari jiray labadiisa garbood. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. أبي هريرة الله كرر لنقضي وحو يري رسولك الله نحريس نبدقلي دوشي ساعاتي وحو يري مركاسي كدب ركوع إلا أكاق حسيش الركوع ذا كدبني استاك أو كعسي توسع إلا أكاق حسيش استاقنا شهاسي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عبد الله بن عباس إساقي آبيه الله كرر لنقضي وحا لغا سوري إن رسولك الله نحريس نبدقلي دوشي ساعاتي او يري وحا لي أمري إنان كو سجودو تضبال لفوت إيو إنان لدودوبين أو لسكسو أرورين لاركا أماتمها أو سيدو ضلو دايو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. أبي هريرة الله كرر لنقضي وحو النبي نحريس نبدقلي دوشي ساعاتي كسوريي متكين يوسن كدو كان مركليا أيضا قيب مرضاسي كمده أيسان سارنين قربيهيسا يعني يوسن دكان إساقو دوت قاون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أنس بن مالك الله كرر للنقضي وحا لغا سوريي عائشة waxay lahayd qiraam dah yar oo jilicsan oo ku dhajisay gurigeeda doc ka mid ah. saa nabiga naxariistii nabadgelyo dushiisa ha ahaatee wuxuu ku yidhi naga leexi daahaaga waayo sawiradiisa baa la ii hor keenayaa intii aan salaada ku jiray oo dhan. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أبي جهينة الله كرر للنقضي وحو يري رسولك على نحريس نبدقلي دوشي سهاتي وحو يري هدي قف هرمري قفك لأو كجر صلاة وأغان لها وينيدا دنبكيسا وحا او قير بدنان لهيد إنو سوغو 40. wariyaha xadiiskani wuxuu sheegay inuusan garanayn waxa loola dan lahaa 40
ma waxaa loola jeeday maalmo mise bilow mise sannado. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. jaabir binu sumrah allaha ka raali noqday wuxuu yidhi, nebiga naxariis nabadgelya dushiisa ha ahaatee wuxuu yidhi, maxaydaan safafkiina salaadda gudaheed ugu yeelin sida ay malaa'igta ugu safato rabbigood hortii? markaasi ayaan ku nidhi, rasuulka allow, sidee ayay malaa'igta ugu saftaan rabbigooda hortii? nebiga naxariis nabadgelya dushiisa ha ahaatee wuxuu ugu jawaabay, waxa ay buuxiyaan safafka hore marka koowaad oo isku qabtaan dhinacyadooda, yacni u istaagaan iyaga oo isku dhow. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. cabdullaahi ibnu cabbaas isagii aabbihii allaha ka raali noqdee waxaa laga soo wariyey inuu rasuulka naxariis nabadgelya dushiisa ha ahaatee uu yidhi, waxaa la ii amray inaan ku sujuudo 7 lafood, foolka uu ku jiro sanka intiisa hore. nebiguna naxariis nabadgelya dushiisa ha ahaatee wuxuu tilmaamay xagga sankiisa, labadiisa gacmood, labadiisa lugood iyo faraha labada cagood. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. nucmaan binu bashiir allaha ka raali noqdee wuxuu yidhi, waxaan maqlay nebiga naxariis nabadgelya dushiisa ha ahaatee oo leh, waa inaad toosisaan oo aad sintaan safafka marka salaadda. haddii aydan sidaas yeelina, alla dhexdiinna colaad iyo khilaaf ayuu dhigayaa, macnaha waxaa dhexdiinna ka abuurmaya cadaawad iyo iskhilaaf.